أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير كاني الناس والسعودين أيونو بلا بدون مانتا نوحو كبلا ما درس جانو سورة حج آيات سقالية تبناد. يقول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يقول الله سبحانه وتعالى، يعني درسينا إن شاء الله تعالى سينصور شيخنوح كبلاميا مانتا سورة حج آيات سقالية تبناد وحن وليكو قد جرنا جسكي تضبية تبناد. يقول الله سبحانه وتعالى: هذان لبداسي أما لبدني خصماني وكوي كدودي أما كوي كدودي وي اختصموا في ربهم rabbigood ayay ku doodeen. Marka haadaani waxaa loo celinayaa labadii kooxood ee laga soo hadlayay oo ah fariiqul iimaan iyo fariiqul kufri. waxaana tilmaantay aayadda: ina aladiina aamanuu waladiina haaduu waasaabi'iina waannasaara waalmajuusa waaladiina ashrakuu ina allaha yafsilu baynahum yowma alqiyaamah in allaha calaa kulli shayin shahiid. yacni kuwa iimaankan laga helay oo kooxa iyo kuwa kaloo kooxo kala duwan markaas lagu tilmaamay. haadaani khasmaani, allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kuwani waa laba kooxood ama labadaasi waa laba kooxood oo waxay ku doodeen fii rabbihim rabbigood ayay ku doodeen. faaladiina kuwa kafaruu gaaloobay qudicat waxaa loo jarjaray lahum iyaga thiyaabun maryo min naarin naar ka samaysan yusabu waxaa lagu shubi min fowqi ru'uusihim madaxyadooda dushooda alxamiim biyo kulul ayaa lagu shubi. halkan abaalkoodii buu allah subxaanahu watacaala ka tilmaamayaa. yusharu waxaa lagu dhalaalin ama waa lagu dhalaalin bihi biyaha kulul maa fii butuunihim waxa ku jira caloolahooda dhexdooda waljuluud iyo maqaarkaba iyo dubkaba. markaa walahum waxay leeyihiin maqaamicu dubayaal yacni madaraqyo min xadiid bira ah kulamaa mar walloy araaduu doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta xaggeeda min ghammin yacni shiddo iyo murugo iyo karbiga murugada haysa darteed mar kastoy damcaan inay ka baxaan uciiduu waa lagu celiyaa fiiha naarta dhexdeeda waxaana lagu yidhaahdaa waduuquu wayuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa duuquu dhandhamiya cadaab alxariiq cadaab waxgubana dhandhamiya. allah subxaanahu watacaala aayaadkan waxaa lagu tilmaamaya si aynu soo sheegnayba waa laba kooxood oo iyagu ku doodaya yacni midkii xaq ku taagan oo rabbigood ayay ku dhex doodeen. alle wuxuu leeyahy marka wuxuu ka warramayaa kuwa gaalada ah iyaga waad xasuustaan qudicat markaan idhaahno waa yacni waa la googooyey oo kale dhaaway. qudicat waxa loo jarjaray oo loo googooyey lahum iyaga thiyaabun maryo min naari naar ah yusabu waxaa lagu shubi min fowqi ru'uusihim madaxyadooda
dushooda hee alxamiimu biyo kulul, biyaha kulul baa lagu shubay. marka biyaha kulul sidaa madaxa looga shuba hee yusharu waxaa lagu dhalaalin oo waxaa lagu dhalaalini bihi biyaha kulul ee lagu shubay maa fii butuunihim wax caloolada ku dhex jira. biyaha marka lagu shubo caloosha gudaha waxa ku jira oo dhan baa googo'aya. markay googo'aan cadaabku uga soo baxo dabadan hee waljuluud jirkii ayaa googo'aya markaas dubkii. walahum waxay leeyihiin kuwaas ahlu kufrigii maqaamicu dubayaal madaraqyo yani dubah ayay leeyihiin min xadiid oo bir ah yani ayaa marka ayaa lagu garaacayaa. kulamaa mar wallo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay ka soo baxaan minhaa naarta xaggeeda min ghammin murugo darteed yacni dhib iyo shiddo ay la kulmeen adaygeeda awgeed inay ka soo baxaan ay damcaan uciiduu waa lagu celiyaa fiiha naarta dhexdeeda. wayuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa duuquu dhandhamiya cadaab alxariiq cadaabka waxguba. ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkiisa sidaas ayuu u sifeeyey. cid u adkaysan kartaana ma jiro. ilaahay naga koriyo oo haynaga ilaaliyo cadaabka jannana hayna geliyo. kuwa muuminiintina waa kan in allaha alleh yudkhilu wuxuu geliyaa aladiina kuwa aamanuu iimaanka laga helay wacamiluu الصaalixaati ee falay acmaasha wan wanaagsan jannaatin beerooyin tajri ay dareeri ama beero tajri ay dareeri min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyo. yuxallowna waxaa loo geliyaa oo loogu labisaa waxa loo xidhaa hee yuxallowna fiiha waxa loogu labisaa jannada dhexdeeda hee min asaawira shuuliyo waxyaalahan gacmaha la gashado min dahabin oo dahab ka samaysan walu'a ama luul ah yacni jawaahirta teeda markaas dhalaasha ee cadcad. walibaasuhum dharkooduna fiiha jannada dhexdeeda xariir wayaan buu leeyahay alleh. wahuduu waxaa lagu hanuuniyey ila atayibi wax wanaagsan ayaa lagu hanuuniyey hee adduuniyadan inta ay joogeen uu shay wanaagsan iyo aqwaal shahaada inay yidhaahdaan kelmadda markaas saxda ah oo ah inuuna jirin ilaah xaq lagu caabuda alla mooyaane. ilaahay subxaanahu watacaala taa ayuu ka hanuuniyey. wahuduu waxaa lagu hanuuniyey ila atayibi wax wanaagsan adduunyada intay joogeen min alqowli oo qowl ah. qowlkaasoo maxay ah sida shahaadada laa ilaaha ila allah watakbiir wataxmiid wa arshadahum. wahuduu waxaa kaloo lagu hanuuniyey ilaa siraati alxamiid dariiqa islaamka ah ee la mahadiyo. wahuduu waxaa lagu hanuuniyey ila atayibi wax wanaagsan ayaa adduunyada lagu hanuuniyey oo min alqowli hadal ah hadalkaasoo ah shahaadada shahaadatu an laa ilaaha ila allah watakbiir wataxmiid. wahuduu waxaa lagu hanuuniyey ilaa siraati alxamiid waxaa lagu hanuuniyey jidka markaas la mahadiyo oo ah dariiqa alislaamka. in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wayasuduuna waxay ka jeediyaan can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa waxay ka jeediyaan dadka ayay ka jeediyaan. in aladiina kafaruu billaah kuwa ilaahay ku gaaloobay hee waxay ka duwaan oy ka jeediyaan kuwa aan iyaga ahayn islaamka inay soo galaan. yacni in aladiina kafaruu kuwa gaaloobay yasuduuna waxay ka jeediyaan oy ka duwaan hee dadka kale maxay ka duwaan can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa oo ah islaamka ayay dad ka duwaan. walmasjid alxaraami dadkana way u diidaan masjid alxaraamka alladii masjidkaasoo jacalnaa aan u yeelnay hu masjidkaas linnaasi dadka
sawaan xaal au iskugu mid yahay alcaakifu kan degan fiihi maka dhexdeeda walbaad iyo kan socotada ah. waxaasina alla wuxuu tilmaamayaa waxyaalihii ay mushrikiintu samaynayeen, sida tusaale ahaan caam alxudaybiya oo kale, inay rasuulka iyo saxaabadiisa ay u diideen inay soo galaan markaas maka. ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wayasuduuna waxay ka jeediyaan oo ka duwaan can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa oo islaamka ah, waxay ka duwaan dadka ayay ka duwaan, walmasjid alxaraami masjid xaraamkana dadka way u diidaanoo way ka duwaan, alladii masjidkaasoo jacalnaa aan u yeelnay hu masjidka linnaasi dadka sawaan xaala uu iskugu mid yahay alcaakifu kan degan fiihi dhexdiisa walbaad iyo kan socotada ah. waman yurid qofka doona biilxaadin leexasho xaqa laga leexdo, waman yurid fiihi maylan can ilxaqi bilwuquuci bishay min almacaasi caamidan nudiqhu min cadaabin mu'lim buu leey alla subxaanahu watacaala. qofka beydka alle la doona leexasho uu ka leexanayo ama uu ka leexinayo xaqa, isagoo markaa macsiyo ku samaynaya, macsiyadaana u camdiyaya, waxaan dhanasiinaynaa buu leeyahy alla subxaanahu watacaala cadaab daran. waman yurid qofkii doona fiihi masjidka dhexdiisa biilxaadin leexasho xaqa laga leexdo ama macaasi ku sameeya aan la damcan, yacni bidulmin dulmi, nudiqhu waxaan dhanasiinaynaa min cadaabin cadaab aliimin waxanuujiya. wadkur ka sheekee ayuha rasuulu rasuul allow id wakti bawa'na aan dejinnay ama bayannaa aan u caddaynay liibraahiima ibraahiima makaana albeyti beytka makaankiisa. wadkur waxaad ka sheekaysa oad xustaa rasuul allow id wakti bawa'naa aan qaadana marka u caddaynay, bayannaa liibraahiima makaana albeyti aan u caddaynay nabiyillaahi ibraahim makaana albeyti yani beytka ilaahay makaankiisa. waayo marka hore majhuul ayuu ka ahaa. allaa tushrik ay laa tushrik ha u shariig yeelin biya aniga shay-an shaynaba, watahhir u tahir beytiya gurigayga lilطaa'ifiina kuwa dawaafa lilطaa'ifiina kuwa dawaafa ee beytka ku dawaafa, waalqaa'imiina iyo kuwa markaa taagan iyaguna cibaado markaas u taagan, yacni waxa weeyaan tukanaya, waalqaa'imiina iyo kuwa markaas iyagu taagan, waarukaci sujuud iyo kuwa ku tukanaya markaa. wadkuraa xustaa nabi allow id wakti bawa'na aanu cadayna liibraahiima nabi ibraahim makaana albeyti beytka makaankiisa, allaa tushrik oo alla subxaanahu watacaala uu ku yidhi nabi ibraahim u waxyooday allaa tushrik ha ii shariig yeelin biya aniga shay-an shaynaba, watahhir u tahiri beytiya gurigayga lilطaa'ifiina kuwa markaas dawaafa, waalqaa'imiina iyo kuwa taagan, waarukaci sujuud iyo kuwa markaas salaad u taagan ee waxaweye markaas waalqaa'imiina waarukaci sujuud kuwa salaad u taagan. waadin u yeedh finnaasi dadka u dhawaaqo u yeedh dadka bilxaji xajka ugu yeedh, yaatuuka way ku imanayaan rijaalan iyagoo lugeynaya, yacni koox waxay iman iyagoo lugeynaya lugahooda ku socda, wacalaa kulli daamirin iyo iyagoo saaran awrka. daamirku waxaa la yidhaahdaa waa awrku marka yacni waxa baciir mahzuul, yacni markuu awrku muddo badan soo socdo, dhibta iyo tacabka soo gaadha uu luudaa markaa, yacni tacab culayska saarnaa iyo socodka dheer uu soo maray ayaa markaas la yidhaahdaa. yatuuka way ku imanayaan rijaalan iyagoo lugeynaya, wacalaa kulli daamirin iyo iyagoo saaran awr soo daashay
ya'tiina way ku imanayaan ya'tiina way ka imanayaan min kulli fajin dariiq walboo camiiq fog. allah subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi nabiyullaahi ibraahim, u dhawaaq dadka adigoo ugu yeedhaya inay ku soo xajiyaan guriga alleh. way ku imanayaan iyagoo markaas lugaha ku socda iyo iyagoo gaadiid saaran. gaadiidkii ilaahay sheegay wuxuu yidhi awrta marka in badan lasoo wado ay soo daalaan, yacni laabtooda ayaa markaas hoos u dhacda, culayska iyo dariiqa dheer ay soo mareen. markaa wa-adin u yeedh finnaasi dadka bilxaji xajka ugu dhawaaqo ugu yeedh, ya'tuuka way ku imanayaan rijaalan iyagoo lugeynaya, wacalaa kulli daamirin iyo iyagoo saaran gaadiid sida awrta oo kale. yaatiina way ka imanayaan min kulli fajin dariiq walboo camiiq fog, liyashhaduu si ay u xaadiraan ama ay ugu yimaadaan manaafica lahum wax iyaga anfaca, wayadkuru smaallaahi iyo inay ilaahay xusaan fii ayaamin maalmo macluumaatin la yaqaano. ayaamka marka macluumaadkiihi waxa weeyaan waa 10 la yidhaahda markaas dilxija, waa 10 ayaam alawala fi dilxija ayaa culimada qaarkood markaas ay ku macneeyeen. tafsiirkoodana suuratulfajri tafsiirka dheer ayaan aad markaas ugu faahfaahinay. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay si ay u xaadiraan oo ugu yimaadaan wax iyaga faa'iido u ah, oo maxaa ka mid a dembi dhaaf iyo inay helaan abaalmarin, yacni in laga aqbalo markaas thawaab la siiyo, iyo ilaahay subxaanahu watacaala inay kelima tawxiid ay ku dhawaaqaan. intaa kadibna ilaahay inay xusaan oy gowracaan hadyigii ay la yimaadeen ay wateen fii ayaamin macluumaatin, oo kuwaasa markaa 10 dilxija wa 3 ayaam bacdahu, iyo 3 maalinta 10aad waa maalinta markaas la gowraco hadyiga, iyo 3 cisho ee markaas ka dambeeya. sida maxaa loo yeelayaa? shukran lilaahi, mahadin ilaahay la mahadinayo, calaa maa rasaqahum, ilaahay waxa uu ku arsaaqay oo ah bahiimat alcaam. waa maxay bahiimat alcaamna? geela iyo lo-da iyo ariga. allah subxaana watacaala wuxuu le liyashhaduu si ay u soo xaadiraan ay u yimaadiin manaafica lahum wax faa'iido u ah, oo ah dembiga in laga dhaafo, thawaabna la siiyo, wayadkuru smaallaahi iyo ilaahay inay xusaan fii ayaamin maalmo macluumaatin la yaqaano. marka haddaan kitaabkeena sanadka oo qoryo kale aan dhahno mukhtasarka ah, yacni waxa waayo maalinta 10aad iyo 3 maalmeedoo ka dambeeya oo ah markaas maalmaha la gowraco hadyiga. markaa calaa maa rasaqahum, ilaahay wixii uu ku arsaaqay min bahiimati lancaam oo nimcooleyda ah, geel iyo lo iyo ariba. alle wuxuu leey fakuluu cuna minha hadyiga aad gowraceen wax ka cuna, wa atcimuu quudiya albaa'isa ka saboolka ah, albaa'is alfaqiir wasracina albaa'is alfaqiir saboolka sii caydha ah. yacni waxaa laga wadaa markaa wa atcimu minha man kaana shadiid alfaqr, qofka markaas faqiirnimo xoogya hayso. uma intaa kadibna uma liyaqduu intaa kadibna liyaqduu ha zuuliyaan tafathahum wixii dhib ah ee soo gaadhay, waliyuufuu ha oofiyaan nuduurahum. uma intaa kadibna uma liyaqduu si ay markaa iskaga zuuliyaan tafathahum wixii dhib soo gaadhay ee awsaakh soo gaadhay, waliyuufuu iyo si markaa ay u oofiyaan nuduurahum nadarkoodii, waliyatawafuu iyo si ay ugu dawaafaan bilbeyt alcatiiq beyt alcatiiqa si marka ay ugu dawaafaan. aayaddan in yar ayay markaas sharax u yar baahan tahay. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay uma liyaqduu maa baqiya calayhi min manaasik alxaj, yacni intaa kadibna ha gudaan wixii ka hadhay manaasigta xajkooda ay marka ay gudanayaan.
hana markaas xalaal ha ka noqdaan waxyaalihii mamnuuca ka ahaa oo ah inta madaxa la xiiro iyo cidiyaha in la guro wa isaalat alwasakh iyo wixii wasakhda markaa inay iska suuliyaan ee markaa ugu yimiday ixraamka ay ixraamteen sababtiisa. Allah subxaanahu wa tacaala thumma inta wuxuu leeyahay thumma liyaqduu intaa kadibna haddana dhahna markaan ku sharaxna hada isaan wadno ha gutaan wixii manaasig ah ee xajkooda ka hadhay, haddana ha zuuliyaan tafathahum waxyaalihii markaa awsaakh ah ee soo gaadhay sababtuna marka ixraamka ay sideen awgooda. walyuufuu ha fuliyaan oo ha buuxiyaan nuduurahum nadaryaalkooda, walyatawafuu ha dawaafaan oo ha ku dawaafaan bilbeyt alcatiiq beyt alcatiiqana markaas ha ku dawaafaan. beyt alcatiiqna macnihiisu waxa weeyaan waa guriga Allah subxaanahu wa tacaala au ka xoreeyey in jabaabiradu ay qabsadaan, yani beyt alcatiiq macnaheedu waa sidaas. dhalika shaygaa la idin faray oo ah inaad ka xalaalowdaan wixii la idin yidhi madaxana ha xiirina, cidiyahana markaas ha gurina, awsaakhdana ha iska zuulinina. Allah subxaanahu wa tacaala amarkaa la idin faray iyo nadarka inaad fulisaan iyo inaad markaas beyt alcatiiq aad ku dawaaftaan waxa weeyaan waa waxa uu ilaahay idinku waajib yeelay. haddaba waman yucadim qofkii weyneeya xurumaati illaahi ilaahay xurmadihiisa fa huwa kaasaa khayrun lahu u khayr badan khayrun lahu isaga u khayr badan cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa. kaa inuu sameeyo ayaa u khayr badan inuu dhigto kaas yani uu camal falo. wa uxillat waxa la idin xalaal yeelay lakum idinka al ancaamu nicmooled. ancaamna maxaa nidhi waxa weeyaan waa geela, waa lo-da iyo adhiga ayaa la nimcoolay. ilaa maa yutlaa kii mooyaane lagu akhriyey ama lagu akhriyi doono calaykum korkiina, ka markaas korkiina ay suuratulmaa-ida markaa sheegtay ee layidhi yani laydinkama xaaraantinimaynin minhaa ilaa suuratulmaa-ida kuway sheegtay markaa baxiira, wasiila iyo markaas aayadda kuwii kale markaa ay tilmaantay. alla wuxuu leeyahy fajtanibuu ka fogaada arrijsa qurunka min alawthaani asnaam ah, wajtanibuu ka fogaada qowla zuur hadalka baatilka ah ee beenta ah ee ilaahay lagu been abuuranayo. alla wuxuu leeyahay xunafaa'a lilaahi, weli hadalkii baa isla sii socdaa. ay ijtanibuu daalika arrinkaa lasoo sheegay ka fogaada, xunafaa'a idinkoo u leexanaya diinta xaqa ah ee ilaahay raalli idinka noqday, oo ka leexanaya diin walloo baadil ah, ghayra mushrikiina ilaahayna aan u shariig yeelayn bihi alleh. waman yushrik qofkii u shariik yeela billaahi alleh fakaannamaa waaba isagiiyo khara ka soo dhacay min assamaa'i samada xaggeeda, fatakhtafahu tayru oy dhufatay shimbiro ay shimbiro dhufteen, aw tahwi ama ay ku tuurtay bihi isaga arriixu dabayli fii makaanin meel saxiiqin fog. qofka ilaahay u shariig yeelay tusaalihiisa ayuu alla subxaanahu wa tacaala halkan inooga tilmaamaya. alla wuxuu leeyahay qofka ilaahay u shariig yeelay waa sidii qof samada ka soo dhacay. samada markuu ka soo dhaco laba mid unbuu noqonayaa markaa, in ay shimbiro dafaan oo intay dhuftaan hilibkiisa iyo lafihiisa markaas ay cunaan, ama ay tuurto oy hoobiso dabayliye ay ku tuurto meel fog. labadaa mid uunbuu noqonayaa. dhalika kaa maa amara allaahu bihi min tawxiidihi wa ikhlaasi lahu, kaa ilaahay au idin faray oo ah
in ilaahay keligii la caabudo cibaadadana ilaahay subxaanahu wa tacaala loo khaalis yeelo iyo in laga fogaado sanamyada iyo hadalka baatilka ilaahay lagu been abuuranayo. kaasi muxuu yahay waman yucadim qofkii weyneeya shacaa'ir allaahi ilaahay macaalim uddiin astaanta lagu garto alla subxaanahu wa tacaala diinta calaamadaheega fa inahaa weynayntaa la weyneeyo macaalim uddiin yacni diinta calaamadaheega ama astaanta lagu garto ayhee min taqwa alquluub quluubta cabsideeda ayay markaas ka mid tahay. haddaan aayaddan in yar aan wax ka hadalno, alle wuxuu leeyahay arrinkaa laydin soo faray oo ilaahay in la caabudo keligiia, in ilaah ikhlaas loo yeela, in laga fogaado asnaamta ah, hadalka baatilka ilaahay lagu been abuuro in laga fogaado ah. yacni hadalkaasi waa maxay? qofka weyneeye alla subxaanahu wa tacaala astaanta lagu garto diinta calaamadaheega ama macaalimu diin oy ka mid yihiin hadyiga iyo manaasigta xajka. qofka intaa weyneeyaay waa maxay? quluubta cabsideeda ayay ka mid tahay qofka acmaasha la yimaade. lakum waxaad leedihiin fiihaa hadyiga aad gowracaysaan eed guriga aad ku gowracaysaan baytalxaraamka manaaficu waxyaalo idin ku intifaactaanoo manaaficu khayr ayaad ku leedihiin ilaa ajalin muddo musaman la magacaabay. halkan macnaheedu waxa weeyaan barigii hore waxaan ka fahmaynaa yani marka hore waxa la yidhi shayga aad ilaahay u gowracaysaan hadyiga ha la weynay. macnaheedu waa maxay? neefka ka ugu yar ama ugu jaban ama ugu liitaha doorine maadaama ilaahay loogu dhowaanayo ka ugu qaalisan neefka ugu weyn alla subxaanahu wa tacaala ugu dhowaada. haddana halkan waxaan ka fahmaynaa inay calaamadayn jireen markaas neefka markaa xajka ay hadyiga u qaadayaan. ilaahay wuxuu leeyahay haddaba neefka hadyiga aad geynaysiin inta ka horeysa la odhan maayo haragiisana wax lagu fali maayo. yacni waxa weeyaan harag kamid waxaan ka waraa caanihiisii, rarashadiisii, dhabarkiisii waxba lagu fali maayaan la odhan bu alle wuxuu leeyahay ka munaafacadsada oo caanihiisana caba. hadday idiin dhalaan na waa nasiibkiina neef oo neefkaasina waa neef wax weeyaan idinku aad leedihiin. waxna waad ku qaadan kartiin, waad raran kartiin, biyaad ku dhaansan kartiin, waanad ku guuri kartiin. haye ilaa ajalin musamaa ilaa inta laga gaadhayo waqtigii la xadiday, waqti la cayiman oo la xadiday oo waqtigii markaas la gowracaya. uma intaa kadibna maxiluhaa meesha ay ku xalaaloobayso, yani waxaa laga wadaa meesha lagu gowracayay ama waajib laga dhigay in lagu gowracay إلى البيت العتيق وبيت العتيق. طيب ولكل أمة والبا الله وحلي جعلنا وحن يالني منسكا ميل أي وحكو جورعان يعني مكان جورع أيان يالني بولي الله سبحانه وتعالى سأيديك وداديان يجو إلهي سبحانه وتعالى أقول ولكل أمة والبا جعلنا وحان يالني منسكا مكان جورع ميلي وحكو جورعان ليذكروا اسم الله سأي إلهي أحسان أي رجاء أن يذكروا اسم الله على ما يذبحونه من تلك يعني سأي أحسان الله سبحانه وتعالى على ما رزقهم إلهي. ولكل أمة والبا جعلنا وحان يالني منسكا مكان جورع أما ميلي وحكو جورعان ليذكروا اسم الله سأي إلهي أحسان على ما رزقهم إلهي وحي أو كو أرزاقي من بهيمة الأنعام ونمعو ليدا قيلة لوضا إيا مركاس أريقا دبايح دا مركا هديقا أي سمين يالغا وضا فإلهكم إلهين إله وإله واحد كليا فله اللؤون أسلموا وهوغان سما وبشر وحد بشاريسا المخبتين كوا الله سبحانه وتعالى وخشوع عبادنا خالص كمركاوية. هذا أيضا سيجود حنوان لهنا مركز الله سبحانه وتعالى وحليه هاي
ummadihii hore waxaan u yeelnay makaanu gowrac ay dhiig ku daadiyaan si ay ilaahay ugu dhowaadaan. ummad walba markaa iyagoo markaa rajaynaya in Allah subxaanahu wa tacaala waxa ay gowracayaan ee ugu nicmeeye ee nimcooleeda ay ilaahay ugu dhowaanayaan oo ah gowraca ah shukran lilaahi, iyagoo marka ugu mahad celinaya calaa maa rasaqahum ilaahay wixii uu ku arsaaqay oo ah min alibili waalbaqari waalghanami, geel iyo lo iyo adhiba. markaa alla wuxuu leeyahay walikulli ummatin ummad walba jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan makaanu gowrac liyadkuruu isma allaha si ay ilaahay ugu xusaan calaa maa rasaqahum ilaahay wixii uu ku arsaaqay oo min bahiimati alancaam nicmooleeda ah geel iyo lo iyo adhiba. fa ilaahukum ilaahiinu ilaahun waa ilaah waaxidun kaliya, falahu isaga uun hee aslimuu u hogaansama. wabashir u bishaaree almukhbitiina kuwa u khushuuca ee alla subxaanahu wa tacaala waxa sirtoodana alla subxaanahu wa tacaala khaalis u yeela. aladiina kuwa idaa dukira allaahu marka alla la xuso wajilod ay baqato quluubuhum quluubtoodu, wasaabiriina iyo kuwa ku sabree ku adkaysta, kuwa ku sabra calaa maa asaabahum wixii soo gaadhay, ku sabra wixii soo gaadhay ee dhib ah ku sabra, waalmuqiimi salaah iyo kuwa salaada ooga, wa mimaa kii rasaqnaahum aan ku arsaaqnina yunfiquuna wax ka bixiya. waalbudna halkan waa geela iyo lo-da. waalbudna geela iyo lo-dii jacalnaaha waxaan ka yeelnay, culamada qaarkoodna geela unba laakiin qowlka aan qaadana markaa waalibili waalbaqari allatii tuhdaa ila albeyt dhahna markaa waalbudna geelii iyo lo-dii jacalnaaha waxaan ka yeelnay lakum idinka min shacaa'ir illaahi ilaahay astaamihiisa wax lagu garto, lakum idinka ayaan idinka yeelnay. fiihaa dhexdeeda waxa idinku sugan nicmooleyda khayrun khayr baa idinku sugan, manaafic baa idinku sugan adduunyadiina iyo diintiinaba. alla wuxuu leeyahay fadkuruu isma allaah faquuluu waxaad tidhaahdaan bismi illaah cinda naxrihaa marka aad gowracaysiin. fadkuruu isma allaahi calayha, fadkuruu xusa isma allaahi magaca ilaahay waxaad tidhahdaan bismi illaah calayha korkeeda marka aad gowracaysaan, sawaafa saddex iyadoo ku taagan. geelu marka la gowracayo afar adin buu ku taagan yahay soomaa geelu caadi ahaan. marka la gowracayo adin ayaa laga xidhaa, marka mid laga xidho kaa laga xidhay dhinaciisa ayaa lasoo maraa, markaas la gowracaa. haddaba alle wuxuu leeyahay fadkuruu xusa ismallaahi magaca alle calayha markaad gowracaysaan sawaafa iyadoo saddex ku taagan. fa idaa wajabat junuubuhaa neefka aad gowracaysaan dhinacyadiisu markay dhacaan fakuluu cuna minhaa xaggiisa, yacni waxaa la rabaa in si fiican loo gowraco isagoo nool la jarjarin, oo markuu dhinto ee uu si fiican oo nafta uga baxdo heeg fakuluu minhaa, yacni inteed karsataan wax ka cuna. wa atcimuu ka quudiya alqaanica ka qanacsan, waalmuctar iyo ka isbandhigay. halkan maxaa laga wadaa? alqaanic kan qanacsane isagu dhowrsoon, alfaqiir alladii yatacafafu can isu'aal faqiirka su-aasha ka xishoonaya ee isagu aan wax idin weydiisanin wax ka quudu bili alla subxaanahu wa tacaala, kaasi waa qaanica qanacsan. walmuctarna waa ka isbandhigayo isagu waa ka idin weydiisanaya. macnaheed maxaa laga wadaa? ama gacan buu kuu soo taagay, ama meel buu weel dhigtay, ama uu ku weydiistay, yacni ka isa soo bandhigay, kaasna wax ka siiya buu leeyahay alla subxaanahu, wax ka quudiya buu leeyahay. kadaalika sidaasaa sakharnaaha aan idinku sakhirnay lakum idinka lacalakum tashkuruun si aad ilaahay ugu mahad celisaan. lan yanaala allaaha alla ma gaadho luxuumuhaa neefka aad gowracaysaan ama hadiga aad gowracaysaan hilibkiisu,
walaa dimaa'uhaa dhiiggiisuna ma gaadho, walaakin hase yeeshee yanaaluhu alla waxa gaadha attaqwaa minkum ka idinka mida alle ka cabsigiisa ayaa gaadha. yacni sababta aad u gowracaysan hadduu dar ilaahay yahay, cabsidaas ayaa ilaahay gaadha. kadaalika sidaasaa sakharahaa au sakhiray lakum idinka litukabiruu si aad u takbiirsataan, litukabiru llaha si aad alle ugu takbiirsataan ama aad allama u weynaysaan, calaa maa hadaakum ilaahay waxa uu idinku hanuuniyey, wabashir ilmuxsiniina kuwa samafalayaalka ana wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala u bishaaree. yacni halkan lan yanaala allaha alla ma gaadho luxuumuhaa neefka aad gowracaysaan ama hadigaasi hilibkiisu, walaa dimaa'uhaa dhiiggiisuna ma gaadho, walaakin hase yeeshe yanaaluhu waxaa gaadha allehee attaqwaa minkum ka idinka mida alle ka cabsigiisaa gaadha. kadaalika alle wuxuu leeyahay sidaasaa alla subxaanahu watacaala sakharahaa lakum sida uu idinku sakhiray nimcoolida aad gowracanaysaan litukabiru llah inaad ilaahay u takbiirsataan ood weynaysaan shaakiriina iyaahu calaa maa wafaqakum lahu min alxaq, ilaahay idinkoo markaa weyneynaya oo u mahad celinaya waxa uu ilaahay idin waafajiyey oo xaq ah. kadaalika sidaasaa sakharaha wuxuu leeyahay allah u sakhiray lakum idinka litukabiru si aad ilaahay u weynaysaan, tukabiru llaha si aad ilaahay u weynaysaan, calaa maa hadaakum waxa uu ilaahay idinku hanuuniye oo idin waafajiyo khayr ah, wabashir ilmuxsiniina kuwa muxsiniinta ana u bishaaree. in allaha alle yudaaficu wuxuu difaacaa, in allaha alle yudaaficu wuu difaacaa can iladiina kuwa aamanuu iimaanka laga helay. in allaha alle laa yuxibu ma jecla kulla khawaanin mid waloo khaayinimo badan, kafuur oo gaalnimo badan. udina waa loo idmay liladiina kuwii yuqaataluuna lala dagaalamayo biannahum iyagu dulimuu bisababi annahum dulimuu in la dulmiye darteed ayaa loogu idmay alqitaalu dagaal. wain allaha allana calaa nasrihim gargaarkooda laqadiirun kii awooda weyn. udina waa loo idmay liladiina kuwa yuqaataluuna lala dagaalamayo maxaa loo idmay bilqitaal dagaal baa loo idmay. maxaa loogu idmay biannahum dulimuu bisababi annahum dulimuu waayo ama in la dulmiye darteed. wain allaha allana calaa nasrihim gargaarkooda laqadiirun kii awooda weeye. aladiina kuwa ukhrijuu laga soo saaray min diyaarihim guryahoodii laga soo saaray bikayri xaqin xaq la-aan lagaga soo saaray. marka istithnaaga culimadu kii aan soo qaadanay waa istithnaa munqatic, ilaa an yaquuluu, yani halkan wuxuu noqonaysa marka laakina waa la odhan karaa marka. aladiina kuwa ukhrijuu la soo saaray min diyaarihim guryahooda laga soo saaray bikayri xaqin xaq la-aan lagaga soo saaray buu leeyahy alla subxaanahu watacaala. laa jurma irtakabuu dembi ay galeen laguma soo saarine ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen baa lagu soo saaray rabbuna allah rabbigayo waa alle. alle wuxuu leeyahy walowlaa dafcu llah, walowlaa haddaanu ahaanin dafcu llaahi alle celintiisa annaasa dadka ou celiyo ou joojiyo ou difaaco markaa bacdahum qaarkood ou ku celiyo ou ku difaaco bibacdin qaarka kale haddayna heli lahayn, yacni mawjuudun hadduuna kii jira awna ahayn lahudimat waxaa la dumin lahaa sawaamicu ruhbaanadu mowlacyada ay ku cabaadaystaan. nimanka masiixiyiintu waxay lahaayeen niman la yidhaahdo ruhbaano. ruhbaanadaasi waa babka ama mowlacyadeeda ku cibaadaystaan. wa biyacun iyo kaniisadaha kiristanka, wa salawaatun iyo macaabida yahuudda, wa masaajidu iyo masaajidyo yudkaru lagu xuso fiihaa dhexdooda ismullaahi
alla magiciisa kathiiran in fara badan. halkan eeg yudkaru fiiha smullahi kathiira, waxaan u celinaynaa uun masaajida ayaan u celinaynaa, inkastoo mufasiriin qaarkood ay leeyihiin dhammaanba waxa lagu xuso alle kaniisadaha iyo macaabida inxiraaf iyo markaa shirki baa ku jiro, laakiin nagu qowlka waxaan qaadanaynaa kan ah in markaa wamasaajidu yani waxa la dumin lahaa masaajid yudkaru lagu xuso masaajida fiiha dhexdooda ismullahi ilaahay magaciisa kathiiran in fara badan. walaa yansuranna allahu, wallaahi uu u hiilin alleh man yansuruhu qofka isaga u hiiliya, yacni diinkiisa qofka u hiiliya alla subxaanahu watacaala uu hiilin. ina allaha alle laqawiyun waa mid awood badan, casiizun oo wax weyn arrinkiisana gaalib u ah oon laga qaalib noqon. aladiina kuwa in makkannaahum haddaanu awood siino ama aan mulki siino ama aan makan siino fil ardi arlada, aqaamu asalaata salaada ooga, wa aatow zakaata zakadana bixiya, wa amaruu fara bilmacruufi wanaagana dadka fara, wanahow ka reeba dadka can ilmunkari xumaanta. walilaahi alle ayaa caaqibatu lumuur, arrimaha oo dhan cidhbahoodu ilaahay ayay gacantiisa ku jiraan. wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan